بسم الله الرحمن الرحيم ظهر ونكسر قيارتنا لا سعوتا ميل كستوا دونيدا كجوجتان وسدحي tobanka bisha July sanadka 2024 tabintan qodobada aan idinkugu hayo waxa kamid ah warar kala duwan oo saaka ciidamada dawladda Iran iyo kuwa Mareykanku ay isweydaarsadeen maxaa laga yaqaanaa qasaaraha ilaa iyo hadda dhacay isla markaana ilaa iyo hadda meeqa wadan ay dawladda Iran weerar ku qaaday warar kala duwan oo arintaasi la xiriira ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa qiyaarta ay nala socotay iyadoo saldhigyo kala duwan oo kuwa Mareykanka ah saaka si la yaab leh ciidamada dawladda Iran ay u garaaceen qodobada kale oo daawad doonta waxa kamid ah Israel ayaa dhaliil u soo jeedisay madaxweynaha wadanka Mareykanka waxna ay leeyihiin halkii uu nuclearka wadanka Iran uu awood saari lahaa waxa uu iminka Trump ku mashquulayaa bay yiraahdeen arrimaha marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz taas oo dawladda Iran aan wax cadaadis ku keeni doonin Israel ayaa lagu soo waramayaa inay heegan buuxa ku jirto iyadoo ka baqaysa in dawladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay bilaabaan weerar isdaba jooga oo argoosi ah sida ay tilmaamayaan baqaar kamida wargeysyada waaweyn ee ka soo baxaya nidaamkaasi dawladda Iran ayaa hadda war soo saartay waxna ay leedahay waa lagu xisaabtami doonaa cid kasta oo ka dambaysa qorsheynta abaabulka weerarka iyo isku dabaridka dhacdooyinka ka dhanka ah wadanka Iran qaar kamida gobolada dalka Iran ayaa laga soo sheegayaa dhimasho iyo dhaawac ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay ee saakay dhacay gobolka bariga dhexe dhaqdhaqaaqyada ka socda iyo jihada uu tacabirayo xilligan ayaan sidoo kale si gaar ah ugu lafaguri doonaa barnaamijka soo dhawaada khiyaarta ay nala socotay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonayso inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu waqtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma ka raageen lacag aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa ka haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo ku sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay ku saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka ku muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteena www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare saaka waxba la iskuma reeban marka la fiiriyo xaaladda ka taagan gobolka bariga dhexe dhaqdhaqaaqyada iyo waliba culayska military ee dawladda Iran la saarana si la yaab leh ayaa looga jawaabay markii si ba'an loo garaacay qaar kamid ah saldhigyo ku yaala gobolka bariga dhexe ciidamada dawladda Iran ayaa ku dhawaaqay in ay si adag u garaaceen saldhigyo ku yaala qaybo kala duwan oo qaliishka gaar ahaan dalka Bahrain waxaana la arkayay qaybo kamida saldhigyada Mareykanka oo ay ka baxayeen ooro iyo holac xoog leh taas oo lagu macneeyay in gantaalada ay dawladda Iran ku garaacday dhinacyadaasi ay gaareen bartilmaameedkii loogu talagalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadda waxa uu muuqanayaa in uu laga hadla galayo dagaal aan la aqoon ilaa iyo hadda dhamaadkiisa sida dadka taxliilinaya gobolka iyo dhacdooyinka ugu dambeeyaba ay qeexayaan waxa si weyn u soo xumaaday xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran kadib markii ciidamada Mareykanku ay habeenkii axadda qaadeen weerar ballaaran oo lagu beegsaday goobo iyo nidaamyo ciidan oo ku yaala gudaha wadanka Iran jawaab ahaan ilaalada kacaanka jamhuuriyadda ayaa sheegay in ay weerareen dhowr saldhig oo kala duwan oo ku yaala wadamada Bahrain Kuwait iyo waliba wadanka Urdun sida qubarada wararka ay helayaan saaka warbaahinta ay qorayaan dadka wax taxliilayana ay la fagurayaan ay tilmaamayaanba Mareykanku waxa uu leeyahay waxaan beegsanay awoodda militariga ee wadanka Iran waxay hadda ka dambeeya dawladda Iran awood badan oo male baa la yiri waa sida Mareykanka ay ku doodayaan in ay soo xoojiyaan weerarada ay ku qaadayaan doonyaha iyo maraakiibta caalamiga ah ee gooshaya marinka Hormuz
taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in ay fuliyeen mowjado cusub oo weeraro ah oo lagu bartilmaameedsaday 10 goobood oo ku gala yaala gobollo kala duwan oo Iiraan ah iyagoo la sheegay in la adeegsaday hub aad u culus oo ciidamada Mareykanku ay sameeyeen. gantaalaha ugu adag ee Mareykanku ay isticmaalayaan waxaa lagu sheegay inay ka mid yihiin Tomahawk iyo sidoo kale bambooyinka ay ka mid yihiin B2 oo diyaaradaha Mareykanku ay hawada uga soo tuurayaan wadanka Iiraan. CENTCOM waxay sheegeen inay garaaceen baaliiri nidaamyada difaaca cirka Iiraan, raadeerada xeebaha yaala, goobaha gantaalaha laga tuuro, xarumaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo doomaha ciidamada ilaalada kacaanku ay ku sameeyaan duqeymaha iyo koortaga. Mareykanku waxa uu sheegay in ujeedada howlgalku ay ahayd in la weeqo awoodda militariga Iiraan ay ku weerarayso maraakiibta amaraysa marinka Hormuz iyagoo carabka ku adkeeyay in marinkaasi yahay mid caalami ah oo muhiim u ah ganacsiga adduunka. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa dhankeeda sheegtay in duqeymaha Mareykanku ay gaareen koonfurta iyo galbeedka dalka gaar ahaan jasiiradaha Qasham, Bandar Abbas iyo deegaano ku yaala gobolka Qoristaan. Iiraan waxa ay arrintan uga jawaabtay weerar rogaal celina oo wixii saakay dhacay la yaabay kadib markii la arkay saldhigyo Mareykanka ah oo bariga dhexe ku yaalay oo uuro iyo qiic iyo sidoo kale holac u isqabsaday markii gantaalaha dowladda Iiraan ee Sijiil iyo Camaad iyo kuwa kaleba lagu garaacay sida uu ku waramay goordhow telefishinka dowladda Iiraan. ilaalada kacaanka Iiraaniyiintu waxay ku dhawaaqeen in la weerar lagu qaaday saldhigyo kala duwan oo kamid ah dalalka Urdun, Bahrain iyo Kuwait. saldhigga ilaa iyo hadda la weeraray waxa laga yaqaanaa saldhigga Prince Hassan ee ku yaala gudaha wadanka Jordan, xarun lagu hayo diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn oo ku taala baaliiri dalka Bahrain. halkan waa meesha ugu badan ee saaka la arkayay iyadoo uurada iyo qiica uu ka baxayo. waxaa sidoo kale la garaacay saldhigga weyn ee Ali Al-Salim ee ciidamada cirka ee Mareykanku ay degan yihiin ee isna ku yaala wadanka Kuwait. warbaahinta dowladda Iiraan ee Noor News waxa ay ku waramaysaa in weerarada lagu fuliyay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo laga soo tuuray baaliiri saldhigyo ku yaala galbeedka iyo bartamaha wadanka Iiraan. saraakiil militari oo Iiraani ah ayaa sheegay in bartilmaameedyada la doortay kadib dabagal socday 48 saac ee la soo dhaafay iyagoo ku andacoonaya ciidamada Mareykanka inay la kulmi doonaan qasaarihii ugu weynaa tan iyo marka weerarka uu bilowday. dowladda Iiraanna aysan hadda u muuqan in ay joojin karayso colaadaha oo si weyn loo garaaci doono dhinacyada dagaalka ay kula jirto dowladdaasi. Kuwait iyo dalka la yiraahdo Urdun labadaba ama Jordan waxa ay ku dhawaaqeen duqeymaha in ay la kulmeen. waxaana sidoo kale tafaasiil area ay ka bixiyeen waxyeelada ka dhalatay duqeymahaasi. ciidamada difaaca qaranka ee wadanka Kuwait ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen bartilmaameedyo cirka ah oo soo galay hawadooda iyadoo la sheegay in dhawaqyada qaraxyada ay ka dhasheen gantaalaha difaaca cirka oo soo ridaya walxaha lagu soo weeraray dalkaasi. dhinaca kale ciidamada qalabka sida ee wadanka Jordan ayaa sheegay in waa bariga Isniinta ee maanta ay soo rideen 4 gantaal oo ka yimi dhinaca wadanka Iiraan kuwaas oo soo galay hawadooda. dowladda Urdun waxay xaqiijisay in aanu jirin wax dhimasho ama burbur ah oo soo gaaray dhinacooda weerarka lagu soo qaaday. Bahrain waxa ay jeedisay digniin qaran oo ay soo saareen waxa badbaadada dadka kadib markii la sheegay duqeymaha ilaa iyo barqadii maanta inay soo gaareen oo ciidamada dowladda Iiraan ay waxa la yiri si adag u garaaceen qaybo kamid ah wadankaasi Bahrain. wasiirka muraha gudaha ee Bahrain ayaa ku dhawaaqay in la shiday buu yiri seerida digniinta isagoo carabka ku adkeeyay in dadka ku nool dalka loogu baaqay in ay degaan baaliiri meelaha ammaanka ah isla markaana ay la socdaan wararka rasmiga ah ee imanaya. kororka xiisada ayaa wajhi kale u abuuraysa gobolka bariga dhexe marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa hadda soconaya iyo sida ay wax u jiraan. weeraradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee sii horinayay iska horimaadka u dhaxeeya Washington iyo Tehran waxaana laga cabsi qabaa
inay halis geliyaan heshiiska is-afgaradka ah ee la saxay 17 bishii Juun aynu ka soo gudubnay. dhinaca dhaqaalaha qiimaha saliidda ayaa si degdeg ah sare ugu kacay iyadoo qiimaha saliidda uu gaaray baaliyay ilaa iyo 74 halkii foosto kadib markii suuqyada caalamiga ay ku dhawaaqeen in xiisadu ay isbedeshay oo hadda ay cirka sii galayso. markaan eegno ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran waxa ay ku dhawaaqayaan in sidoo kale wadamada ay beegsadeen hadda ay ka mid yihiin wadanka Oman. ciidamada ilaalada kacaanka waxay leeyihiin gantaalaheena iyo diyaaradaheennaba waxa ay burburiyeen radar yaalay bay yiraahdeen gudaha wadanka Saldanada Oman. ciidamada badda waxa ay beegsadeen saldhigyo ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin halka loo yaqaan Javir oo Bahrain ku taala. waxaana sidoo kale cadowga Mareykanka uu la kulmay baaliyay in uu weerar xoogan ku qaado ama lagu qaado saldhigyada uu gobolku ka degan yahay. ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran sidoo kale war degdeg ah hadda soo saareen waxay leeyihiin Mareykanka jidka kaliya ee u furan waxa uu yahay in uu ka fogaado faragelinta biyaha qaran ee wadanka Iran oo ka mid yahay baaliyay qaybo kamida ee marinka Hormuz ee hadda Mareykanku uu doonayo in uu u soo dhawaado sida ay tilmaamayaan wararka ay sii daynayaan dhinacyada. dowladaha caalamiga ah ayaa qaarkood bilaabay in ay si weyn u dhaleecayaan dowladda Iran sida ka muuqanaysa qaybo kamida dhinacyadan wararka ay sii daynayaan. haddii aan eega marka qubanayaasha kale ee saaka kamida taxanayaasheena ee barnaamijka faaqidaada ee xilligan wargeysada Israa'iil gaar ahaan wargeyska lagu magacaabay Diico Daxranood ayaa ku waramaya marka la eego xiisada hadda taagan iyo waliba dagaalada sii kordhaya in Israa'iil ay geliyeen feejignaan xoog leh oo ay kaga baqanayso dagaalada in ay saameyn ku yeeshaan mustaqbalka dowladda Iranna ay ku qaadaan weerar xoogan qaybo kamida dhulka Israa'iil ay ka haysato Falastiiniyiinta meelaha laakiin sida gaarka loo ilaalinayo waxaa kamida goobaha difaaca nuclearka ee Dimona la yiraahdo iyo sidoo kale aagga dekada Haifa oo horay ciidamada ilaalada kacaanka ay uga dhigteen bartilmaameed hadafa. wargeyska Israa'iil ee Diico Daxranood ayaa sheegay in Israa'iil ay sare u qaaday heerka feejignaanta iyo waliba heeganka ciidamada kadib weerarkii Mareykanka habeenkii Axadda uu ku qaaday bartilmaameedyada militariga ee ku yaala gudaha wadanka Iran. sida uu qoray wargeyska mas'uuliyiin Israa'iili ah ayaa sheegay in Tel Aviv ay si dhow ula socoto iswadaarsiga weerarada u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran iyadoo qiimeyn joogto ah lagu sameynayo xaaladda amni ee gobolkaasi ka taagan. mas'uulkan ayaa sheegay in Israa'iil aysan xilligan si toos ah uga qayb qaadanayn dagaalada u dhaxeeya Washington iyo Tehran balse waxa uu xusay in xaaladaasi ay bedeli karayso baaliyay haddii colaadda si ballaaran ay u soo baxaan ama duruufo cusub ay soo wajahdo. warbixintu waxay muujinaysaa in maamulka iyo ciidamada Israa'iil ay diyaar u yihiin in ay wax ka bedelaan istiraatiijiyadooda haddii horumarka dagaalka uu saameyn ku yeesho amniga Israa'iil ama danaha uu ka leeyahay gobolka. dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil aan ilaahdee ee Iran ayaa hadda saameyn xoogan yeelanaya marka la fiiriyo dagaalada sii xoogaysanaya. dowladda Iran oo hadda duqeyn adag sameynaysa isla markaana wadamada Carabta saaka neefta ku celisay ayaa hadda waxa ay mar kale leedahay bartilmaameed hadafa ayaynu ka dhigan doonaa cid kasta oo qorshaysay qaabaysay ka fakartay isla markaana soo jeedisay amaba ku lug lahayd dilkii hogaamiyihii ama murshidkii ugu sarreeya wadanka Iran ee dhawaan lagu aasay magaalada Mashhad Ayatollah Ali Khamenei kaasoo ah hogaamiyihii labaad ee kacaanka wadankaasi ee taladiisa hayay isla markaana kacaankaasi talada uu la wareegay 1979 markii uu afgambiyay nidaamkii Shaah ee boqortooyada wadanka Iran. ku-xigeenka xogayaha golaha amniga qaranka ee wadanka Iran ayaa sheegay in shacabka Iran ay xaq u leeyihiin in lala xisaabtamo dhammaan dadka ka dambeeya dilka hogaamiyihii sare iyo waliba dadkii kale ee la dhintay. mas'uulkan ayaa yiri dalabka lagu ciqaabayo
mas-uuliyiintii ka dambeeya buu yidhi dilka hogaamiyaha sare iyo dhammaan dadkii kale ee la tegay buu yidhi dagaalka waxa uu xuquuq u leeyahay shacabka Iiraan inay aarsadaan waxaan la xisaabtamaynaa dhammaan kuwii qorsheeyay fuliya ama si kasta uga qayb qaatay dilka hogaamiyihii sare iyo weeraradii lagu bartilmaameedsaday waddankeena ayuu yidhi mas-uulkaasi wargeyska Israel ka soo baxay ee The Hearts la yiraahdo waxa uu qorayaa in nidaamka Israa'iiliyiinta saaka ay weerar aan ilaahdee ee afka ah ku qaadeen siyaasadda madaxweyne Trump ee dowladda Iiraan ka dhanka Netanyahu waxa uu leeyahay sida khubarada qaar ay qabaan oo hadalladiisa laga dhadhansan karaa in Mareykanka uu ku mashquulayo meel aan tacab badan u baahnayn in la geliyo oo ah marinka Hormuz taa beddelkeedana ay muhiim ahayd in weerar lagu qaado xarumaha nuclear-ka ee waddanka Iiraan halkaas oo ay ahayd bay yiraahdeen in la naafeeyo wargeyska Israel ka soo baxay The Hearts la yiraahdo ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ee Israel ay sii kordhinayaan walaacooda ku aadan Mareykanka inuu xoogga saarayo xiisadda marinka Hormuz halkii oo mudnaanta siin lahaa wax ka qabashada barnaamijka nuclear-ka ah ee waddanka Iiraan sida wargeyska uu qoray qiimeyn ay sameeyeen lamaha amniga Israel ayaa muujinaya in iskoorimaad u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan uu socon karayo muddo dheer iyadoo labada dhinac ay isdhaafsadeen baa layidhi weerar xadidan balse ay isku dayayaan inay ka fogaadaan dagaal ballaaran oo mustaqbalka saameyn ku yeelan kara guud ahaanba gobolka bariga dhexe warbixintu waxay sheegaysaa in ciidamada Israa'iiliyiintu ay aaminsan yihiin in Iiraan aysan hadda weerarin Israel sababtoo ah Tehran waxa ay si istiraatiiji ah u doonaysaa in ay dagaal ku soo koobto baa layidhi Mareykanka oo kaliya sida qiimeynta lagu tilmaamay Iiraan ma beegsan doonto Israel inta ay u muuqato baa layidhi mid toos uga qayb qaadanaysa weerarada lagu hayo nidaamkaasi si kastaba hay-adaha ammaanka Israel ayaa ka digay in Iiraan ay si ballaarin karta baa layidhi dagaalka oo ay ku dari karto Israel haddii cadaadiska militariga Mareykanka uu sii ballaarto warbixinta The Hearts ayaa sidoo kale sheegtay in qiimeynta sirdoonku ay muujinayso in Iiraan ay durbaabo bilowday dib u dayactirka qaybo ka mid ah xarumaha nuclear-ka ee waxyeeladu ay soo gaartay dhinaca kale ila amni oo Israa'iili ah ayaa sheegaya in ciidamada Israel ay wali ku jiraan heegan sare oo ay doonayaan haddii ay suuragal tahay in ay uga jawaabaan haddii dowladda Washington ama Iiraan midkood uu dagaalka oo dhinaca kale uu ku soo jeedo dagaalkaas oo cidda lagu soo jeedaya ay tahay Israel si ay qayb uga noqoto weerarada ugu dambeeya ee dhacaya warar soo baxaya oo dowladda Iiraan ay hadda sii daysana waxay tilmaamayaan dhimasho iyo dhaawac inay ka dhasheen weerar saldhigyada ciidamada Iiraan ay ku qaadeen Mareykanka kaaliyaha gudoomiyaha gobolka ama Asfahan ee dalka Iiraan waxa uu ku dhawaaqay hal qof in uu ku geeriyooday 7 kalena ay ku dhaawacmeen weerar Mareykanku ay ku qaadeen saldhigga la yiraahdo Na'in oo ciidamada militariga waddanka Iiraan ay deganaayeen wasaaradda amuraha dibadda ee Iiraanna waxa ay tiri isafgaradkii aan la gaarnay dhinaca Mareykanka hadda waxa uu wajahayaa marxaladii ugu adkayd bayaan ka soo baxay wasaaradda waxa lagu sheegay in dowladda Iiraan iyo Mareykanka tilaabooyinka ay qaadayaan ay tahay mid halis ah waliba dowladda Mareykanka lagu eedeeyay halka dhinaca Mareykanka uu ku xadgudbay heshiiska baa layidhi Washington waxa ay muujisay si ku celcelisa oo soo noqnoqoshadeedu ay badan tahay inay falal xadgudub u samayso arrimahaasina waxa ay muujiyeen baa layidhi in 30 maalin ku dhawaad marinka Hormuz uu sii xirnaado dhinaca kale waxa ay dowladda Iiraan tiri inagu ma doonayno inaan weerarno goobaha gobolka mana doonayno inaan burburino nidaamyada difaaca laakiin ujeedada kama dambaysa in aan weerar qaadno waa burburinta dowladaha Mareykanka saldhigga ay ku leeyihiin baa layidhi wadamadaasi waxaa laga dalbaday dowladaha in ay ka fogeeyaan wadankooda iyo dhulkoodaba in looga soo xadgudbo Iiraan oo ay ka raraan saldhigyada ciidamada Mareykanku ay leeyihiin taas oo aan la ogeyn sida ay uga jawaabi doonaan dowladaha carabta ee hadda duqeymaha ugu adag saaka la kulmaya
kula wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabintan iyo taxliilkan gaarka ah oo aynu ku sameeynay wararka iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee gobolka Bariga Dhexe qaybtan intaas ayaan ku hakanayaa waa Cabdicasiis Barrow idile isma dhaafno.